warmurtiyeedkan oo gogoldhig looga dhigay laba qodob oo kala ah amniga iyo siyaasadda ayay madaxda maamul goboleedyada sheegeen inuu sababay in xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyadu uu xumaado heerkanna uu soo gaaro soo noqoshada xiriirkaana waxay ku xireen shuruudo 3 ah waa kan Cabdulqaadir Aadan Maxamuud la taliyaha golaha maamul goboleedyada ahna la taliyahooda oo akhrinayay warmurtiyeedkan dalku ay maadaama dowladda federaalka ah iyadu mas'uul ka tahay xiriir xumida labada dhinac goluhu wuxuu isku raacay in sida kaliya ay wada shaqayntaas labada dhinac ku dhaxmari karto ay tahay in dowladda federaalku joojiso faragelinta guracan ee dowlad goboleedyada ku hayso inay garowshiyo ka bixiso xiisad abuurka iyo faragelinta joogtada ah in la helo hanaan iyo heshiis wada shaqayn oo leh damaanad lagu kalsoonaan karo inta laga helayo fulinta qodobadaas muhiimka ah goluhu wuxuu hakiyay wada shaqayntii u dhaxaysay dowlad goboleedyada